waxaa qabsoomay shirkii caadiga ahaa ee golaha wasiirada ee khamiislaha ahaa shirka waxa shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre shirka ajandihii qodobadii ugu weynaa ee shirka lagu soo bandhigay waxa kamid ahaa marka hore wasaaradda amniga ayaa waxay soo bandhigtay xaaladda amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka sidoo kale waxa ay aad uga soo bandhigeen qorshihii amni ee hirgalay waayihii u dambeeyay caasimadda ay ka fuliyeen wasaaradda amniga ilaamaha amniga dhamaan waxay soo bandhigeen sidoo kale sida ay uga go'an tahay amniga caasimadda inuu soo hagaago ayna xasiliyaan waxay kala soo bandhigeen kormeerka joogtada ay ku hayaan xarumaha ay laamaha ammaanka ay ka wadaan sugidda amniga caasimadda sidoo kale waxa halkaas la warbixin lagaga dhageystay guddiga qabanqaabada usbuuca xorriyadda ee 26 Juun iyo 1 Luulyo oo ay ku soo bandhigeen qorshayaashooda iyo sida ay rabaan inay wax u qabsadaan guddigaasi ay gudoominayaan ay gudoomiye u yihiin ay ka kooban yihiin wasaarado badan wasaaradda warfaafintana ay shir gudoominayso ama gudoonka guddigaasi ay tahay sidoo kale golaha maanta waxa lagu soo bandhigay laguna ansixiyay dood dheer kadib wasaaradda qorsheynta ay keentay heshiiska dhiirigelinta iyo ilaalinta maalgashi ee isdhaafsanay u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Qatar heshiiskaasi oo wax badan ka tari doono guud ahaan dalka wax badan ku soo kordhin doono golahu uu ansixiyay cod aqlabiyad ayuu ku ansixiyay sidoo kale wasaaradda qorsheynta waxay soo bandhigtay heshiis kale oo lagu magacaabo heshiiska iskaashiga dhaqaalaha iyo farsamada u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Qatar asna sidoo kale waa la ansixiyay waana maasantiin